هول jaajuuskii Mareykanka ah ee bixiyay sirtii nuclear-ka waliba baxsaday The Whole Order wuxuu ahaa saynisyahankii ugu da'da yaraa ee ka qayb galay mashruucii lagu sameynayay bambadii atomikada ee adduunka 29 August sanadkii 1949 Ruushka wuxuu noqday wadankii labaad ee heesta hubka nuclear-ka xilligaasi oo Midowgii Sofiyeed qarxiyay bambadii ugu horeysay tallaabadaasi ayaa lama filaan ku noqotay wadamada reer galbeedka sababtoo ah khubarada Mareykanka markaasi waxay u maleynayeen inuusan Ruushka awood u yeelan karin soo saarista nuclear ilaa laga gaaro sanadka 1953 balse arinta la yaab kale waxay ahayd in saynisyahanka u dhashay dalka Mareykanka lagu magacaabi jiray The Whole Order oo ahaa qofkii xukuumadda Mexico ka caawiyay inay nuclear u samaysato si fudud isagoo u gudbiyay macluumaad xasaasi ah Sofiyeedka waxay bambadii ugu horeysay ee nuclear-ka ku qarxiyeen fagaaraha hubka lagu tijaabiyo ee ku yaala dalka Kazakhstan wax si kadis ah u dhacay ma ahayn in bambadii nuclear-ka ee Ruushka ay tijaabiyeen ay noqotay mid leh awoodii ay leedahay bambadii lagu magacaabi jiray ninka buuran ee uu Mareykanka ku qarxiyay magaalada Nagasaki ee dalka Japan taariikhdu markay ahayd 9kii bishii August sanadkii 1945 laakiin xogta aadka culus ku saabsan sida bambadaasi loo sameeyay ayaa loo gudbiyay Midowgii Sofiyeedka waxaana macluumaadkaasi bixiyay nin ka tirsanaa dadkii ka qayb galayay mashruuca lagu farsameynayay nuclear-kii ugu horeeyay adduunka ee uu Mareykanka soo saaray bambadaasi saameynteeda waxaa Mareykanka gacan ku siiyay dalalka Ingiriiska iyo Canada sirta culus mashruucaasi wuxuu ahaa mid ay sirtiisu aad u culus tahay rag aad u tiriyar oo tabaneeyo ruux ah ayaa ogaa micnaha mashruucaasi uu ku saabsan yahay mid ka mid ah raggaasi wuxuu ahaa Hall wuxuuna dhashay 20kii bishii October sanadkii 1925 wuxuuna ku koray xaalad adag oo ay ku jireen dadka caadiga Mareykanka laakiin arintaasi kama hor istaagin Hall inuu adeegsado maskaxdiisa fahmada badan wuxuuna heer sare ka gaaray maadooyinka xisaabta iyo fiisikiska isagoo aad u da'yar oo 16 sano jir ah ayuu boos ka helay jaamacadda Harvard University wuxuuna qalin jibiyay sanadkii 1944 fahmo badnadiisa iyo aqoontiisa dhinaca sayniska ma aysan seegin saraakiisha Mareykanka waxayna ku dareen dad ay u kaxaynayeen xarunta uu ka socday barnaamijkooda sameynta hubka nuclear-ka sanadkii 1943 Hall waxa imtixaan looga qaaday mashruuca ay sirtiisu aadka u cusleed oo ka socday xarunta ku taalay magaalada Los Alamos laakiin arinta aysan saraakiishu Mareykanka ka warqabin waxay ahayd in saynisyahankani da'da yar ay horeba u shaqaaleysteen qolyo kale Hall wuxuu hubin ka ahaa ururka siyaasadda ee jaamacadda Harvard University qolkii uu seexan jirayna waxaa la degnaa arday isku fasal ahaan jireen oo lagu magacaabi jiray Seyful Sak wuxuuna ahaa wiil ay dhaleen dadkii Ruushka ah ee qaxootinimo ku tagay Mareykanka wuxuuna ahaa shuuci sidoo kalena ku dhashay kuna barbaaray magaalada New York haddaba saaqudhiisa ayuu ahaa qofkii Sofiyeedka u shaqaaleysiiyay The Whole Order wuxuuna qaaday xogtii ku saabsaneed barnaamijka nuclear-ka ee u soo gudbin jiray Hall bishii December ee sanadkii 1944 saynisyahankii da'da yar reer Mareykan Hall oo garab ka helaya saaxiibkiisa ay qolka wada degnaan jireen ayaa gudbiyay wax loo aqoonsaday sirtii ugu horeysay ee nuclear-ka laga bixiyay xarunta ku taalay magaalada Los Alamos waxa uu markaasi bixiyay waxa uu ahaa horumarka laga gaaray sameynta hubka nuclear-ka Hall wuxuu ku dooday in Ruushka uu nuclear helay ay xakameysay isticmaalka hubkaasi Midowgii Sofiyeed xilligaasi ma ahayn cadow balse wuxuu xulafo la ah Mareykanka ayuu yiri Hall wuxuu intaasi ku daray in dadkii ka socday Midowgii Sofiyeed ay si geesinimo leh ula dagaalameen maamulkii Naasiga khasaaro nafeed oo aad u weyn ayaana ka soo gaartay geesinimadii ay sameeyeen waxa suuragashay inay guuldaro ka badbaadisay reer galbeedka ayuu yiri Hall waxay Sofiyeedkii u yaqaaneen ninkii da'da yaraa wuxuuna macluumaad dheeraad ah ka siin jiray technology kasta oo laga gaaray farsamada nuclear-ka gaar ahaan hubka ay ku jirto maadada khatarta badan dhalisa ee loo yaqaano plutonium-ta bambadii uu Mareykan ku dhuftay magaalada Nagasaki ee dalka Japan waxay ka samaysneed maadada plutonium-ta waxayna ka dubneed bambadii lagu dhuftay magaalada Hiroshima taasoo ka samaysneed maadada uranium-ta waxaa bilowday howlgal lagu raadinayo
qofka sirta bixiyey sanadkii 1950kii Hall oo shahaadada PhD-ga diyaarinayay jaamacadda Chicago ayay albaabka u soo qaraaceen ciidamada FBI-da Mareykanka. fariin loo qoray qaab sirbeeb ah oo la helay ayaa lagu ogaaday inuu la shaqaynayo Mexico. sanadkaasi kii ka horeeyey waxaa la xiray saynisyahan kale oo Jarman ah oo ka howlgalayay xarunta Los Alamos, wuxuuna qirtay saynisyahankii Jarmalka inuu sirta nuclearka Mareykanka u gudbinayay cadowga, laakiin FBI-du ma aysan u suuragelin inay Hall ka dhaadhiciyaan inuu wax qirto. sidoo kale Salfasek ayaa su'aalo la weydiiyey, waxna ma uusan sheegin. ma jirin saynisyahan kale ay magacaabeen labadii jaajuus ee la qabtay. baaritaanadii lagu sameeyeyna wax astaan ah ma muujin. Hall wuu baxsaday, wuxuuna ka dubnaa eedaysanayaashii kale ee xabsiga qaatay ama loo daldalay dembiyadii ku saabsanaa jawaasiisnimo, laakiin weli Hall iyo xaaskiisa waxay u baqayeen amnigooda. sanadkii 1962 waxaa shaqo laga siiyey jaamacadda Cambridge University ee waddanka Ingiriiska. isaga iyo xaaskiisa waxay u guureen UK. Hall waxaa la geeyey meel isaga iyo qoyskiisa kaliya ku noolaadaan, laakiin sanadkii 1996 waxaa soo baxay sirtii u qarsanaan jirtay weligiisa. saraakiishii Ruushka ah ee wax ka ogaa taariikhdiisa ayaa bannaanka soo dhigay sheekada ku saabsan inuu ka dambeeyey qorshihii ay Soofiyeedka ku heleen macluumaadkii ku saabsanaa samaynta hubka nukliyeerka. nasiib wanaag, xilligaasi ma nooleen qof markhaati ka noqon karay falkii uu sameeyey. xitaa ninkii saaxiibkiisa ah ee lagu magacaabi jiray Salfasek hore ayuu u geeriyooday. ugu dambeyntii bannaanka ayuu wax waliba soo dhigay. waxaa la igu eedeeyey inaan bedelay jihadii ay ku socotay taariikhda, ayuu yidhi Hall. laga yaabaa inaan bedelay jihadii ay ku socotay taariikhda. jihadaasi haddaanan bedeli lahayn sababi lahayd in dagaal loo adeegsado hubka atomikada uu dhaco intii lagu guda jiray 50kii sano ee lasoo dhaafay. tusaale ahaan, bambada nuclearka waxaa lagu dhufan lahaa Shiinaha sanadkii 1949kii. hagaag, haddii aan gacan ka geysan inaysan arrintaasi dhicin, waan aqbalayaa dacwadda, ayuu yidhi Hall, isagoo si toos ah u caddeeyey inuu jaajuus u ahaa Ruushka uuna siiyey xog muhiim ah. ma jirin weerar loo adeegsaday oo nuclear ah oo dhacay wixii ka dambeeyey kuwii laga geystay magaalada Hiroshima iyo Nagasaki. Hall wuxuu qabriga galay isagoo aaminsan inuu arrintaasi sabab u yahay